soo dhawaada arday waa ustaad Fiisima maanta waxaan qaadanaynaa chapter koobaad section 2 waa simple harmonic motion page 6 waxaan leeyahay marka what simple harmonic motion erayga simple waa waxa fudud harmonicna waxa waa end graduation wax markay dhamaanayaan si tartiib kiskis u dhamaada waxaan leeyahay marka this is type waa nooc of the motion ee socod kamida yes maadaama harmonic motion waa type socodka kamida andra wuxuu ku guda jiraa influence saameynta of restoring force maana waxa saameyn ku leh restoring force-ga waana nooc saameynta kamida socodida meeshan soo fiir marka sawirka yarka aan tafasiil ka bixinayna sawirkan markaan haysano waa spring waxaan soo qaadanay oscillation motion horta waana ogaataa ani oscillation motion was ani simple harmonic motion oscillation motion ma jiro aan ahayn simple harmonic motion sababtoo shayga oscillation motion markuu sameeynaa wuxuu rabaa in force lagu dhaqaajiyo haddii socod iyo force isweheliyaan waxaa la dhahaa waa simple harmonic motion waxa noocaas socod iyo force inay isu tagaan marka shaygan waa kana spring-ga halkaas uu jooga marka intaas spring-ga jooga maskana soo qaadan maskan hadad gacantaada ku jiiday adaa force noqonaysid hadduu mask ku jiidayana with gravitational lagu darayo force noqonay yes marka mar walba maxaa jiray with motion with force marka force-gan waxaan ku xirnay spring-gan halkan uga xirnay wuxuu sameeyay x displacement intaane hoos wuxuu kala bixinaa x displacement ma waxay tagay marka position ka duwan yes very marka waxaan leenahay under influence-gan waa restoring force-ga shaygan markii halkan mask aan geeyno yes maskan halkan markaan geeyno on maskan ka qaadno when remove the load markaan maskan ka qaadno yes shaygan wuxuu ku laabanaa it is equilibrium position waxa ku celinaa waxa la marka restoring force yes awoodaas spring-ga ku kaydsan ee booskeedu ku celinaa is called restoring force marka socod ee restoring force ku lug leedahay hadda aragtid waxa la dhahaa simple harmonic motion okay maxalena simple harmonic motion waxa la socod restoring force ee ku lug leedahay yes waxaan imaanaynaa marka restoring force is a force which acts to the body to bring a body to its equilibrium position kalda fiir marka hadaytu waan ka hadalnay oo maskas markaan ka qaadna shayga waxaan dhahnay uu laabana awoodaas celinaya booskeeda geenaya waxa la restoring force bugun intuu ku qoraya wuxuu ku dhahay is a force which acting to bring the body to its equilibrium position ama mean position case make own displacement awal jir for example maxaa kamid simple pendulum ka hadad aragtid waxa waaye waa simple harmonic motion mass spring-ga waaba kana hadda aan qaadanayno tusaalahan hadda aan qaadanayno swing waxa waaye waxa ma la wiifowga waxa ma lusha biraha ku xiran marka wakadalika waxa soo dhan waxay noqonayaan simple harmonic motion today laga bilaabo waa inaad taqaanaa marka ardayo waxa uu yahay simple harmonic motion and how it is work yes page 7 waxaan ugu qoran Hooke's law yes waxaan leenahay marka Hooke's law states that yes the spring force applied by the spring is proportional the restoring force applied by the spring is proportional to the displacement of the spring and the opposite in direction marka wuxuu leeyahay Hooke's law wuxuu ka hadlaa in elastic markuu ka hadlaa materialka wuxuu leeyahay restoring force-ga la isticmaalayo isticmaalaya spring-gu wuxuu proportional ku yahay macna direct proportional displacement-ga ee spring-ga sameeyay but waxay inuu dhahay in opposite direction yes but in opposite in direction waxaan marka dafir force-gu wuxuu proportional ku yahay displacement-ga delta x-ga force-gu wuxuu la mid yahay leena marka minus kan waa opposite in direction yes keydana waxaan keenay constant proportionality ka dhaxeeda force restoring force iyo delta x-ga spring constant la dhahaa oo k waxay direct proportional ku tahay delta k marka fiir labadan shay f and delta x way isu qaybsamayaan
tiro walba wax walba isu qaybsanaa waa variable isku qaybsanaa waxay isku yihiin direct proportional waa inay ogaataa marka magacyadina waan kala siinay yes simple harmonic motion ma marka this acceleration is proportional to its position. Its acceleration karaarkiisa wuxuu proportional ku yahay positionkiisa macnaha waxa laga wadaa displacementkiisa and it's certainly direction to the displacement from equilibrium position. Yes, accelerationku wuxuu proportional ku yahay positionka but opposite direction. Bis position kan is displacement kan way isleeyihiin marka is directly proportional to the displacement and opposite direction the acceleration of simple harmonic motion waa kaaga filan halkan imo acceleration waa kana waxa lagu helaa equal wuxuu lamid yahay minus k delta x loo qaybshay m acceleration k mass hadda maxay isku yihiin inverse laakiin taas ma ka hadlayna maanta waxaan ka hadlaynaa acceleration ka iyo position kaas waxaan leenahay waxay isku yihiin directly proportional opposite direction minus taala sababtoo uu isu qaybsami karaan yes masska acceleration ku isku dhufsamayaan laakiin taasi ku noqotay inverse proportion aad u mahadsantiin